السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaan waa sakari Soomaali iyo waddanka Australia. maanta halkaan waxaanu ku sameeynaa barbardhig yar degdeg ah oo waddan aad ka faa'iideystaan baynaha. waxaan hayaa waddanka New Zealand ayaa waxa ka soo yeeray daatada informationka oo sanadlaha soo baxda ayaa sanadka maanta soo baxday. waxaa newskan wararkan sheegayaan waddanka New Zealand iminka waxa hoos u dhacay qaxootigii oo qaadan jiray immigrant-iga offices-ka ka imaan jiray. meel ay ka imaan jireen uma hubeen Afrika iyo Asia ka imaan jiray kulli dadka horta hoos buu dhaca. meesha ay ka soo gali jiray 49000 wax ku dhow laga filayna soo gasho 10000 bay noqotay waddanku waa cidla. waxa kaloo sanadkan dhacday 58000 people New Zealand ay ka soo baxday Australia soo gashay. dadka ka soo baxay New Zealand oo ka tagaya shaqada lacagteeda oo yar ma garanaysaa unemployment-iga badan oo New Zealand ka soo baxaya aad u badanaya. waxa kaloo daatadu sheegtay migration-ka ma garanaysaa New Zealand ayaduna ay sheegaysaa iminka in nolosha New Zealand interest-iguna ay ka hooseyso Australia ka hooseyso. guryaha vacancy-ga oo rental vacancy-gana all time high guryaha ma garanaysaa bannaan ay iminka high u badan yihiin. marka halkaa waxaa ka soo socdaa leeyahay Chinese waddanka New Zealand dadka usugu badan yahay inay ka tagaan dadku u dhashay oo ma garanaysaa New Australia ka soo aadanaya meelo kale oo lacagteedu sareysa aadaan waddanka miciishadiisa iyo guryaha kiraduna ay dhulka geli doonto oo ma garanaysaa noqon doono waddan sida Asia kale tahay qabow oo cidla ah oo guryaha wada bannaan yihiin oo ma garanaysaa qofkii yimaada ma garanaysaa chief oo shaqay tahay ayuu noqon doonaa. meesha laga kala cararo miciishada jabta waxay faa'iidooyin badan baa laga helaa. shaqadeeda shantii sano la soo dhaafay New Zealand wage-keeda wax wage growth ma lahayn oo ma garanaysaa lacagta la shaqooyinka laga qaato weligeed kor oo ma socon oo waa stack bay ahayd. ciladahaas waxay keentay unemployment-iga ku badan dadka shaqo la'aanta ku badan New Zealand. taas baa waxay keentay inay horta Australia soo aadaan. hadda sanadkan kula hadlay August laga soo bilaabo to now waxa la sheegay kontinisdeed kun baa soo gashay. kontinisdeed kun ay laantaa sanadkan oo 100 baa ka soo baxday. marka aad bay u fara badan tahay kiwiga soo galay Australia aad bay iminka u sii badanaya. marka Soomaalida Chinese-ka eegta waddanka New Zealand wuxuu noqon doonaa island Pacific ku taala oo cadaana oo dimuqraadiya oo baasaboorka dunida ugu xoog badan way leeyihiin. ayaga iyo Singapore baasaboorkooda 12 yihiin ma filaya. baasaboorada dunida ugu xoog badan wadamada yar yar ka rich ka way baasaboorkooda aad buu sharaf badan yahay. lama hadlo qofka wata baasaboorka New Zealand. marka waddanka New Zealand il gaar ah ku fiiriya Chinese ka raasada Australiadan iyo Canada ad ku waalateen halkan futs kale baa la tagtagay Australia dadka baabaha Canada waa sidoo kale meelaha siigeystaan waa baqtiyeen waana kala daraya magaalooyinkan waaweyn Australia Canada caanka waxba ku soo ordinayna jabayna ka soo horeeya waddanka New Zealand alla eego laga faa'iideysto warbixinta ku saabsan waa soo wada waddanka New Zealand sharciga si looga helo halkan waa sakari Soomaaliya waddanka Australia. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.